بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waa idin salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto salaan ka bacdi waa cunke official cidii nagu cusub ha samayso subscribe like share waad mahadsantihiin waxaan dul istaagayaa wax yar oo ku saabsan arrinta hadda ka soo cusboonaatay Soomaaliya iyo Kenya run ahaantii haddii aan wax yar idiin iftiimiyo arrinta hadda ka soo cusboonaatay Soomaaliya horta hore sanadkii hore bishii 2 February waxaa ku horreysay Kenya inay u yeedho safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliyana ay u didho Muqdisho iyo wada xaajoyd Soomaaliya waxay samaysay madaxdeedu siyaasad bisil bay aad u samaysay iyadoon ku degdegin dulqaad badan bay muujisay marka innaga waxa inala haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed anoon cidna wax ka sheegayn cidna aan rabayn halkaan inaan ku aflagaadeeyo laakiin wax yar oo caqliga bini aadanka uu fahmi karo ayaan rabaa inaan iftiimiyo arrintan maxaa ka sababay maxaa kalifay waxaa kalifay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo xafidullaahi anigu waan taageeraa waxaanse ku taageeraa anigu dadkii waxaan ahay burburka la jaan qaaday Soomaaliya aan dowlad lahayn aan arkin ku caqlisan laakiin qurbe ayaan imid dowladnimana qurbe ayaa i baray oo waxay tahay dowladnimo cid iga sheekeen ma hayso laakiin waxyaalaha markaan daawado dowladihii hore ee Soomaaliya 60kii ilaa kacaankii 21 sano waddanka haystay Maxamed Siyaad Barre Ilaahay ha naxariisto iyo madaxdii horeba dhamaanto Allah ha naxariisto qabkii ay lahayd Soomaaliya ayuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo celiyay goorma ugu dambeysay mas'uul ama dana gaara kale Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya tiraada ka bax ninkii UN ta haystay watay waaga cayrisay haddana Kenya waxay ka sameynayso Jubaland waa ognah iyo gobolka Godo shacabkii maalin walba ku leynaysaa waxa suuqaysaa xoolihii bay leynaysaa Ilaahay baa idin ku dhaarshay siyaasi madaxweyne soo noqday oo aynu aragnay wuxuu u qabtay fashilmay maanta hadday ku midoobeen xisbi lagu burburinayo dowladnimadan soo iftiintay oo hadda adduunka waxaynu ka nahay aniga waddanka Zambia ku noolahay aad baa naloo ixtiraamaa dowladdan hadda jidha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awgeed nala kuma degdego qaxootiga laguma degdego ma garata dadku ishooday wax ku arkaan indhahooda u macallina marka anigu waan soo bogaadinayaa waan soo dhaweynayaa dowladda Soomaaliya maadaama ay kii xunkahay oo kukuyada ah ay cayrisay tarsanna u yeedhay waan hambalyeeynaya Kenyana waxaan u sheegayaa Kenyoy adaan kula hadlayaa Kenyoy tan isma taqaano Maxamed Siyaad Barre maanta haddii uu dhintay loo sheegi lahaa Kenya maanta laga hayaa calaamad su'aal baan saaray marka waa dowladda kaliya oo hadda aan dariska nala ah oo aan aaminsanahay inaan Nairobi dabaqyada dheer ugu tagayno aan aaminsanahay waxaan kale u sheegayaa midna waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waa kaceen 75% waa dhalinyaro shacabka Soomaaliyeed dhalinyaro weey yani qabaa'il waa laga tagay siyaasi qabiilkiisa ku kacsanaya tolaayay waa laga tagay Muqdisho maanta wax ka qurux meel ka qurux badan ma jiro aad baan ugu hambalyeeynaya isimada hawiye iyo reer Muqdisho dhan 91kii cidna yaan loogu yani goodin haddaad 91 dib loogu noqonayo Muqdisho loogu noqonaya Puntland maamul bay leedahay Jubaland maamul bay leedahay Somaliland maamul bay leedahay ma garateen Koonfur Galbeed maamul bay leedahay cidda aad u goodinaysid waa Muqdisho iyo deegaankaaga weeye marka
waxaa idin sheegaya nimankiina siyaasiyiinta cabdiraxmaan cabdishakuur ugu horreeyo iyo xasan sheekh iyo sheekh shariif. sheekh shariif mid baan leeyahay, sheekh shariifow aad baanu kugu hanweynay laakiin waad fashilanta. xasan sheekh isaga ku fogaan maayo. cabdiraxmaan cabdishakuur baan leenahay, cabdiraxmaan waa ku naqaanaa, ku barannay waxaa tahay nin aad iyo aad iyo aad u hadal macaan baad, laakiin qalbigiisu madow yahay. shalay baad waxaadna lahayd cumar cabdirashiid baa wuxuu yidhi isaga weydiiya warqaddaa saxiix yidhi. see kuu dhihi karaa anigaanoo shacabkaa baanan yeelayn? xaggee joogta adoo wasiira? shalay baad fashilanta oo maanta in aniga kukuuya ugu haysato baddaan yaa oo adduunka dhan og yahay adaa sabab ah. laakiin ilahay idinkas oo ka guulaysanayaa bisha 3 2021. aad baan idiin salaamayaa, raalli ahaada. waa kilib yara weeye, ma jecel inaan political ka hadlo laakiin waa iga fursan weyday. soo raaca waa cunka official. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.